أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقذيني سدحات كمدة دروس تتحانها أهيد يعني تلقلنا بشهر رمضان. درسينا سدحات وكسب سيهي القرآن الكريم في شهر رمضان. بشهر رمضان maadaama ay tahay bishii qur-aanku soo degay, qofka muslimkaa ee bishaani u bilato waxaa looga baahan yahay inuu ilaahay kitaabkiisa iyo qur-aanka akhriyo oo aada iyo aada intuu akhri jiro uu ka badiyo ayaa loo baahan yahay. maxaa yeelay bishaan waaba bishii qur-aanku soo degay, sida ilaahay subxaanahu wa tacaala أو كتاب كيسا كليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. إلهي وعير بشان وبشي رمضان وبشي كتاب كفرقان كالسود جيي إساقو هنون واه ضدك مسلمين تا أو أمد دور دنبا هنونين أيو لأنه كتاب كان عد الرميسة كرد غنتا ee akhrisa ee la noolaato wuxuu ku hanuuninayaa wadada wanaagsan. ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. ilaahay wuxuu yihi qur-aankani waa qur-aanka ku hanuuninayo wadada toosnaanta badan. adduunna wuxuu ku hanuuninayaa wanaag, aakhirana wuxuu ku hanuuninayaa jannadiisa iyo ridiisa inuu helo. saas daraaddeed ayaa qofka muslimka waxaa looga baahan yahay inuu kalaamka ilaahay la noolaado, inuu leeyahay qorshe qur-aanka ku saabsan oo waa inuu maalintii hadduu dhammayn karo u dhammeeyaa, hadduu bar akhri karo inuu bar akhriyaa, hadduu rubac akhri karo afar dalool meel inuu akhriyo, hadduu maalinba jallaadkeeda akhri karo inuu akhriyo maalinba subaceeda. ugu yaraan qofka intuu awoodo inuu dadaalo karaankiisa. nabiga calayhi salaatu wasalaam bishaan ramadaan jibriil ayaa usoo degi jiray. bisha dhan 29 ama 30keeda jibriil ayaa nabiga u imaanayay fa yudaaris macahu lqur'aan. qur-aanka ayuu la sobcin jiray oo la akhrin jiray. marka qur-aanka isla akhrin jireen waa lala dejin jiray. sanadkii ugu dambeeyay uu dhimanaya nabiguna 2 mar ayuu la dejiyey oo qur-aanka inta laga soo bilaabay faatixa iyo baqaro ilaa birabbinaas ayaa jibriil iyo nabigu wada akhrinayeen. marka maadaama ay shahrul qur'aan tahay oo ilaahay qur-aankaba bishaan uu soo dejiyey, waa in lagu maamuusaa qur-aanka. maxaa yeelay camalada ugu fadliga badan uu ku jiraa qur-aanku. nabiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yihi alxasanatu bicashri amhaaliha. wanaag haddii aada samayso iyo daacaya khayr 10 ujibaar ayaa lagugu abaalmariyaa binasi qowlihi tacaala man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha. qofkii hal wanaag la yimaad ugu yaraan 10 ajir ayaa loo qorayaa ilaa 700 dicfin ilaa 700 laab ilaa adcaafin kathiira. ilaahay intuu doonu laalaabayaa hadba sidaad camalka u wanaajisay iyo ikhlaaskaada. marka in qur-aanka aada loo akhriyo oo aada loogu dadaalo, maadaama uu nabigu yihi alif laam miim xarfun ma dhahaye alifkuna waa xaraf, laamkana waa xaraf, miimkuna waa xaraf. marka qofka muslimka alif laam miim hadduu yihaah ugu yaraan 30 darajo ayaa loo qorayaa. waa fursad aada u qaaliya. marka waxaa nafteyda iyo naftiinaba u dardaarmayaa in qur-aanka aada loo akhriyo oo maalintii iyo habeenkiiba la akhriyo, salaada lagu dukado, salaad la-aan la akhriyo, 12 qur-aanka lala noolaado. والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.